kulankan oo ay maanta Muqdisho ku yeesheen xildhibaanada gudbiyay mooshinka kalsooni kala noqoshada gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa wax uu muuqday mid mar kale ay ku soo bandhigayeen cududooda. xildhibaanada kulanka ka hadlay ayaa sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka uu ku xadgudbay xeeroosaadka baarlamaanka iyo dastuurka ku meel gaarka. waxay mar kale ku celiyeen baaqoodii ahaa inuu iscasilo. marka adigoo 200 iyo wax la jiro xildhibaano oo maanta ku dhahaysa gudoomiye si sharaf leh iskaaga tag xilkan iskaaga tag marka gudoomiyow intii laga jiido ha sugid nin weyn geeridiisa waa yaqaana ee iska ilaali dadkan ee balaayada gadaal ka fadhiyo ee aad moodid in aan loo jeedin warnimayahow waxaan leenahay dadka fitnada gadaal ka wado geel ayaa waxaad rabtaa inuu arin ku gabado ilaahan kugu dhaashay aw geel arin duudkiisa kuma qarinayo kowdhe meel aad ku gaban kartid ku gaba ee fitnada naga dhaaf ma gudoominayo intuu kiiskaasi yaalo waxba yaanu isku lugoyn haddii uu maanta helo xataa kiiskani uu yaallaa baadhis buu imiga ku jiraa haddii waxba lagu waayo waa goolideeda oo booliska iyo heedaha amniga iyo sharciga oo waxba laguma lehe ha iska joogayda laakiin wixii maalintii dhaweyn dhacay hadday ku cadaadaan waxba gudoomin maayo halkaas uu joogo waxba inaanu islu goyn baa u roon oo magalaanu ku lugoyn laano ilaahu halkaa ka soo anbabaxayo waxaan shaqo baan karaamayso haddii sharcigu ka cala yaqaano yahay kii la yaqaanay waxaan idinkaga mahadcelinayaa imaashaha timaadeen ayadoo 220 xildhibaan ay halkan fadhido waxaan leeyahay gudoomiyaheena waxaan leenahay halkan codku ma yaalo codkii lagugu doortay in ka badan baa kula inaga tag si wanaaga oo odaytinimo xilka uga deg. ugu dambeyn waxaa kulanka laga soo saaray war-saxaafadeed dhowr qodob ka koobnaa waxaana warbaahintu u akhriyay xildhibaan Aadan Isaaq. waxaan halkan shacabka Soomaaliyeed ugu cadeynaynaa in gudoomiyaha mooshinka laga keenay uu jabiyay qodobo badan oo dastuuri ah iyo xeer hoosaadka iyo shuruucda dalka u taal. Number 1 gudoomiyaha mooshinka laga keenay waxa uu jabiyay dastuurka qodobkiisa 4 saraynta dastuurka Soomaaliya faqradiisa koowaad. Number 2 gudoomiyaha mooshinka laga keenay waxa uu jabiyay dastuurka qodobka 68aad xeeroosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka faqradiisa koowaad. Number 3 gudoomiyaha mooshinka laga keenay wuxuu jabiyay dastuurka qodobka 65aad faqradiisa 3aad. gudoomiyuhu inta uusan qaban xilka waa inuu ka tanaasulo xil kasta uu ka hayo xisbi siyaasadeed waana inuu noqdo dhexdhexaad marka uu gudanayo xilkiisa. gudoomiyaha maanta waxa uu ka baxay dhexdhexaadnimadii koox yar uu xildhibaano ayuu waxa uu dhiibtay taladiisa isagoo si bareer ah u sheegay in go'aan walba uu gaarayo in kooxdaasi uu la soo noqon doono. si kastaba ahaatee kulankan maanta ay Muqdisho ku yeesheen xildhibaanada gudbiyay mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ku soo aadaya xilli la filayo in maalinta berri ah uu dhaco kulankii golaha shacabka ee mooshinkan codka lagu qaadi lahaa inkastoo ilaa hadda aan si rasmi ah loo xaqiijin karin qabsoomidda kulankaasi maadaama dhowaan taliyaha ciidamada AMISOM uu sheegay inay la wareegeen xarunta golaha shacabka. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.